السلام عليكم. waxaan design yar ku sameynayay boardkan oo aan sameynayo la dhahayo REMDX qaybtiisii labaad ayaa guriga ii yaala marka waxaan arkay waxyaalo yariis inaan u baahan inaan ka bedelo marka kii aan ka shaqeynaya ayaa waxa dhacday su'aal yariis waxaan iska weydiiyay hadaa meeshaan fiirino kan horta waxa waaye microcontroller waaye kan oo la dhahayo STM 32 kii ayaan isticmaalayay marka banaankiisa waxa ii yaala labo button mase meel la taabto la riixo marka labadaas xab ayaan sameynaya ayaa waxa isweydiiyay su'aal yar oo ah resistorkan inaan u baahanayo in kale to ayaa su'aal iska weydiiyay sababta waxa way lacag baan ku dhaqaaleysan karaa oo boardkuna uu ka yaraanaya sidaan hadii aan ka soo qaato aan isticmaalin marka waxa isweydiiyay muhiimadiisu maxaa waaye marka saan u baaro muhiimadiisa waxaan isticmaalay softwarekan la dhahayo LT Spice meeshan waxa way dhanka oo kan resetka sheegaya kan dhankan kale tana waxa way kan bootka marka sidii aan asaga waxa way simulationka ugu sameeyo waxaan isticmaalay softwarekan saan ku dhahay marka waxa koobaad aan sameeshan idin sheegay waxa way dhankan waxa way waa dhanka oo microcontroller tagaya meeshan toos meeshan u tagaya marka midkaasi waxa way gudaha microcontroller waxa ku jira waxa la dhahayo pull up resistor kani way adiga numberku yahay ma ogsooni laakiin 100 baan isaga qiyaasay waxaan kale oo sameeyay meeshan waxaan ku dhagsaday 10 nanofarad oo capacitance ah kiina intaan ku sawirtay marka dhankan waxa waaye meeshaas kadib meeshan waxa waaye fiilo inductorkaas aan ka soo qaadayno inay tahay fiiladaasna waxa waaye markaan PCB-ga aan sameynayno fragan waxa waa ilaa tagaya meeshan sukada inay tusiyo ilaa ay meeshan kan tagaya waaye marka waxaan arkay fiiladan aadna u dheertahay marka fiilada aad u dheerna waxa way dhib leedahay runtii marka sidaas darteed ayaa waxaan isiri horta bal simulation ku samee si aad u ogaatid in dhib ka imaanaysa in kale aydan tusiyo fiiladan dhirirkeeda waxaan sameeyay waxa way kuwan dhan baan fiiriyay inta waxa ku qornaanaysa intuu dhir leeyahay waxa ku qoran 2 mm inuu qiyaastii leeyahay kana sidoo kale saas u waday adigu fiiladaas ka soo bilaab ilaa iyo meesha ay ka tagisay kulli baan isku daray kulli markaan isku daraa waxaan isticmaalay homepage meeshan oo ku xisaabinaya wuxuu ku xisaabinaya waxa waaye inductorka oo traga hadaad dhirkiisa fiirisid marka waxaan dhahnay fiilada meesha ay marayso ilaa iyo ground reference kiisu meeqa isku jiraan inta isku jiraan waxa waaye ibar 2 mm waaye marka fiilada balaceedana waxa waaye ibar 25 mase 250 microsecond fiilada korkeeda mase traga electriciisu intee buu buurnaan leeyahay marka buurnaantu waxa waaye 1 ounce kaas oo u dhigmata 35 micrometer u dhigmata fiilada dhirkeeda meeqa waayaa lahay fiilada dhirkeeda aan ku qoray meeshan waxa 60 camal aan ku xisaabshay marka waxaan dhahay ii xisaabi inductorku waxa waaye 211 nano henry kii ayaan inta ku qortay hadda 400 hore igu qornaa laakiin 200 aan ku qorayna haddaan meeshan schematic dib ugu fiirino kan dib u fiirno waxa shan ugu qoran button-kan noogu sawiran marka button-kan waxa way asaguna san simulation-ka ugu isticmaalno waxaan isticmaalaynaa kan switch-kan waxa way marka marna wuu furnaanaya marna ground uu noqonaya kaas oo u dhigmaya markaan riixno meeshan ayaan ground ku dhijinayna button-kan riixnay kadib waxa meeshan ground noqonaya haddaan simulate dhahno oo aan fiirino voltage-ka inta waxaan arkaynaa marka horeeto voltage-ku waxa waaye 3 volt waaye marka button-ka riixo isla markaas uu dhacaya oo waxa waaye meeshan ground ayuu noqonaya marka ground ku noqdo waxaan arkaynaa saan inuu weeyahay marka tan in dhakan aan fiirino waxaad arkaysaa meeshan inay ka hooseyso 0 volt ina ka hooseyso marka sababtuna waxa waaye oscillation ayuu sameynaya markii kan iyo kan waxa ka dhaxeeya ayagu waxa waaye mar waxa waaye kan ayaa charge gareysmaya oo waxa waaye charge-ka ku jira ayuu wuxuu dirayaa capkuna markuu asaguna buuxsamo kabacdi uu isku diraa maanta hore gadaal isugu dirayaan marka sidaas darteed ayaa waxa dhacay oscillation-kan marka oscillation-kan marka warkood waxa dhici kara waxa waaye aad u badnaan kara oscillation-kan waxa waaye energy waxa waaye stored energy oo ku jira capka iyo mid ku jira inductance-ka marka ayaga hore gadaal maanta uu noqonayo si aad kaas oo aad u gubtidna waxaad u baahan tahay resistor marka resistor baa inta ku dhajinayna marka resistor inta ku dhajino ka soo qaadno 10 ohm waxa dhacay waxa waaye isla markaas waxa waaye energy oo ka soo qaad hore gadaal u noqonayay waxa dhacaysa waxa waaye energy baad ku gubaysaa kan
marka sidaas darteed uu oscillationka uu dhimanaya marka haddaan simulate marka la dhahno oon meeshii dib ugu soo noqono waxaa arkaysaa oscillationka inuu istaagay sidaas darteed marka waxaan ka ogaan karnaa waxa waaye waxaan u baahannahay si aad u hubsatid inuusan dhibkaaga iman sidaas darteed waa u baahan tahay resistorka marka warkood laakiinse wax weyn maahan laakiin waxaan tusinayay aniga hadda waa isticmaalayaa laakiin waxaan tusinayay waxa waaye wax markaad ka shakidid seebaa waxaa loo soo ogaaday inuu dhib ka iman karayn kale okay sidoo kale boodkana waa samaynaynaa boodku waxa waaye inta ayuu aadayaa boodkuna wuxuu sameeyaa waxa waaye microcontroller markuu bilaabanayo waxaa kala doorsan kartaa sida wax ugu shubi kartid marka waxa waaye boodkan haddii kaba soo qaad aan high ka dhigno waxa dhacaya waxa waaye waxaan doorsan karnaa meeshaan rabnaa ama kaba soo qaad USB ayaan ka programmeyn karnaa mase UART second line serial communication mise si kale marka saddex si baa loo kala doorsan karaa laakiin anaga waxaan doorsanaynaa waxa waaye haddaan riixno meeshan waxaan rabnaa USB-gan dib laga arki doonaa laakiin USB-ga inaan isticmaalo si aan u programmiyo marka kanna markaan riixna waxa dhacaya waxa waaye meeshan oo boot ku dhagan yahay ayaa kor u qaadayna marka resistorkan in loo baahan yahay classna soo kala rabana ogaado soo sidoo kale haddaan inta asagana fiirino ku soo noqon software-kii kan waa asaga bootki waa kana meesha oo microcontroller ku dhagayay resistorkan ayaa waxaan sameeyay waa kan oo meeshan igu dhagan 10 kilo ohmka marka 10 kilo ohmka waxa waaye pull down waxa la dhahayo kana waxa waaye switchka waaye switchkaas oo u dhigma buttonkan taabanaynay halkaas labadooda dhexdooda markii laga tago waxaa ku jira inductor mase fiiladaas oo sidoo kale daan tusi PCB-ga meeshaan ka imaanaya halkaan soo maraya hadda resistorka uu ku dhigsaday laakiinse hoostiisa halka ka soo baxayay ilaa ay uu ka tagayay microcontroller uu ka tagayay marka fiiladan xogaa fiilo dheer waaye oo soo qaad hadduu kan 300 noqdo xogaa 300 sababtan u dhahayna waxa uu kan ugu weyn yahay waxa waaye layerka oo fiiladan ay ku socoto ay ka gedisan layerka oo kan ku socda kan waxa koro waaye layerkiisuna kan waxa gudaha ku jira marka uu ka gedisan yahay hadii uu number waxaan isticmaalay side waa laga yaabaa inuu noqdo mise uu ka fiican yahay fiiladii ayaan wax sameeyay dhirkeedii aan qiyaastay waxa ay ka soo qaad wuxuu dhigmaa 300 oo nano henry uu dhigmaa capkan wuxuu dhigmaa waxa waaye fiiladani hadii oo ka soo qaad ground geesihiisu jiro oo ama hoos ka jiro waxa jira waxa la hayo parasitic capkaasna waxa uu dheeraan karaa iyo mid kale oo ah markii aan gaarno inkaan aan gaarno asaguna waxa laga yaabaa inuu capacitance leeyahay marka wixii dhammaankaas ku darno xoogaa zaid ka dhigno waxaan dhahnay ka soo waa 10 nanofarad waxa way runtiina waa number aad iyo aad weyn laakiin dib ma leh marka asagana sidoo kale simulate dhahno hadda naga tirtir waxaan dhahaynaa simulate kadib waxaan fiirinayaa boodka sida uu ekaanayo markii la taabto buttonka waxa way marka inta taabanayna buttonka markaas loo taabto waxa dhacaya waxa way isaguna wuxuu soo noqday overshoot haddaan sii fiirino waxaan arkaynaa oscillationkiina isagoo leeyahay kuwa labadan xabo energy-ga maanta hore gadaal isugu celinayaan kaas ayaa sameynaya oscillationkan marka oscillationkan saan u joojino sidii hore taamal ayaa waxaan sameynaynaa resistor soo qaadanaynaa waxaan ku dhijinaynaa switchka agtiisa markaan fiirinaynaa waxa oscillationkan ku dhacaya hadayna simulate oscillation waxa ku dhacay isla markaa hore ka istaag marka kan horta runtii kan dib weyn ma lahayn laakiin kan wuu ka dhib badnaan karaa maadaama wax way voltage-ka iyo si aad iyo aad u sii dheeraan karo hadda ka soo qaadaan kan ka saarno aan dhahno fiorn tusamal microcontroller siisaba waxa waaye max voltage-kiisu wuxuu ahaan karaa 3.6 volt maximum ahaan karaa marka waxa waaye marka uu wuu aad iyo aad kor u sii kici karaa uu dhaafi karaa marka dib u geysan karaa boot pin-ka sidaan aan sameynayo aniga inay tahay xoogaa excessive laakiinse resistorkan wax way boss weyn igama qaadanayaan wax la ii hagaajinayaan maana wax dhib ay ugu yimid geysanayaan marka sidaas darteeda waan ku darsaday inta ayaa labadii ku dhigsaday midkii wax waaye midkii resetka iyo keyboardka marka waxa in tusinaya waxa ahayd video waan u sameeyay maadaama aan processkii marayay bal tusi dadka sida markii wax shaki aad ka qabtid sida loo baaro iyo sida loo gaaro go'aan marka sidaas darteed ba intaas bareen la qaybsado salaam calaykum